الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أما بعد، walaalayaal waxaynu maraynaa bishii ramadaan gabagabadeeda. nasiib wanaag ilaahay waa inagu sibay ilaa intay sii dhowaanaysay. fursadda ilaahay waa ina siiyey subxaana wa tacaala. waqafaat qodobo dhowr aynu isdul taagi insha allah oo baraarujina iyo saynu uga faa'iidaysan lahayn fursadda. qodobka ugu horeeya waxa weeye waqtiga hadhay inaan ka faa'iidaysano. jimcihiisa insha allahu waa la dhaafay ramadaan, ciiday daba martay. sidaa daraaddeed waxa ayna xusuusinaysaa ramadaantaa degdega inoogu soo kashee degdega u baxday safarkeenna aakhiro waxaa u imanayaa sidaa dhaqsaha ah ee ramadaan ay u timi ay u baxday. habeenka iyo maalinta isbedelaya, socdaalkaa uu soconaya wuxuu ku xusuusinayaa socodkii aakhiro. yuqallibu llaahu alleyla waannahaar ina fii dalika lacibratan liuli labsaar. ina fii dalika lacibra, habeenkan iyo maalintan isdaba socdaa cashar bay u yihiin iyo cibro ayaa ilaahay wuli subxaana wa tacaala dadka aragga dheergaradka ah. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu lmu'miniina akyas, dadka muuminiinta qofkeebaa u fariidsan. rasuulku waxa uu ku jawaabay akaruhum lilmowti dikra, qofka xusuusta geeridu ay ku badantay ama badiya. ka ugu tacliinta maadiga yaqaan lama odhan, ka siyaasiga baarica ah ee ku dheereeya baabka lama odhan, alqabeenka muu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam, ka adduunyada dhaqaya lama odhan. laakiin meelaan ay ka filayn buu uga jawaabay waxa uu qofka ugu fariidsani waa qofka isu diyaariya safarka lama huraanka ah ee aan is-ilowsiinin aan u dhagoolayn. saasay ahaan saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim, asxaabtu gacantiisa ku tarbeeyey nebigu. geediga aakhiro geediga loo yahay ee loo socdo way ku talagalsanaayeen, qowlun kamay ahayna ficilkoodana way ka muuqanaysa. asxaabigii abudar la odhanaya baa nin ugu soo galay guriga uu ku soo booqday. dabcan asxaabta zuhaadana uu ka mid ahaa ee baasha adduunyada dadka kala dardaarmi jiray. ninkii baa gurigii abidar buu eegeegayoo wuxuu arki waayo xalaaboo yaalla. wuxuu ihi gurigaaga alaabtiisii meeday. wuxuu ihi guri kale oo aanu xaggiisa usii guurayno oo wanaagsan bay alaabtu noo taallaa. dee maxaad kuba kaadhi buu ihi halkan abaan waxba ku oolina wixii yaraad u baahnayd inaad soo dhigataa waa muhiim. wuxuu ugu jawaabay ina saaxiba albeyti laa yadacunaa fiih, ka gurigan iska lihi ama cidda gurigan iska leh waanu nagu daynay, hor u nooga saarayaa. marka isagu ilaahay buu jeedaa subxaanahu wa tacaala. waa aad baynu u kala duwannahay. meeshaynu inaguna ku dadaalay inaynu rarayno qalabka badan gelinayno waa guriga halkan. guriga aakhiro intaa u diyaargarowdaa ma badna dadka. waxa labaad aynu isxusuusinaynaa, kayd baynu dhignay biidni illaahi tacaala, camallo kala duwan baynu samaynay. camalkaa inaynaan dib u duminin oo macaasidii iyo xumaantii iyo balwaddii dadku ay ka baxeen iyo xaaraantii ay ka hadheen inaanay dib ugu noqon. wuxuu ka dhigan yahay qofka wixii uu ka hadh uu ka toobad keenay ramadaan dib ugu noqda qof intuu guri dhisay dib u duminaya. qur-aanka taa tusaalayaal buu ilaahay keenay subxaana wa tacaala. waxaa ka mid ahaa qisadii ninkii la odhan jiray bacru bnu baacura. waxa uu ka mid ahaa culimmadii reer banu israa'iil. nebi muuse waa ku kalsoonaa. wuxuu u diray qoladii reer madyan oo uhi bal soo islaamiyo hanuunka ugu yeedh. markii uu halkaa tegey way khiyaameeyeen. dadka had iyo jeer siyaasiyiinta iyo hogaamintuna in badan bay isku dayaan rijaalu diin ama ragga culimada inay
karkaarka weydaariyaan oo ay ka faa'iideystaan si aanay uga hor iman waxa ila nabi Muuse imisuu ku siin jiray adduunyo maxaad ku qabtay waadii gacanta midig wahaay waxba kuma qabin waxa la waxaan ku qabay ma jiro haddaba anaga ku siinayno waxa maal fara badan dahab badan iyo lacag badan bay u yaabeen iskaga tagmeeyaan ka soo goos uu ridoobayo diintiina uu ka baxayagina uu ku beeray وك إلهي القرآن كجوا الرمية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين بلدتك وآخر السياء يقدك دون آذان كيان ما مسلم السنة آياتها يقبل هاي دين بالسي توراة يقال فانسلخ منها مركزوك نحسيبت شن كبود بون نقضي شيطان با أهل ونقضي شيطان بقى أهل النقضية الركاب كيسو كاسو راعي مركا لنا إلهي سبحانه وتعالى تسالها وحكب بحي قفك وحي ولسي ديب الدمينية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا الله من نقولين أبو لايد تي حركة انت أتكيسي صهدها هذا نديب فرفريس وتعب قصار وقف واستقول لنا بنايا شرعي قالوا تقنين تاسوين السيا قرآن حديث با نبينا عليه الصلاة والسلام دردارا كقرآن كم بحوجنا ياو إن نندب النقم أصحابي لورنا يا عبد الله بن عمرو بن عاص يا حكوري يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه هبين كيبو ننكاس هبل الله بدنا قلنا عبد الله يو هبين كيبو عبادة يسنجروا إسكداي معناه يا إلى نفهم من تهجد كي تراويح دون رمضان للسعودي ربي يقول للسعودي سبحانه وتعالى عبادات ربي باسكالها رمضان ما يلهين وهو حي دائم لا يموت عبادة حلقة بجمع عون لقى تجا قفك هبينك يقولي سوسكجت كذا ترتيب وين ديالات هداد هردوا انتهينا عشاء كدب عبادة أو قصيوة هدي صاكع كرا يسهبينك قيبت الدمر وناكسنتها صلاة الصباح كهر صاكع صلاة داتكو انت تكري كرتو وأنا كل رجال ينشر النبي عليه الصلاة والسلام عبادة دائما كأنه وضنا أصحاب ابن عمر نوح كلها نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله بن عمر وانه وناس إذا كلارن كيسوا في عين هدوها بينك وانتو كلها لفاق صور راعي النبي عليه الصلاة والسلام تينتي دم بابا سحشدي سوا يراي إلهي مركو عيد إن جارسيو لابد من الآداب آداب الله قام بارمانه دين عيد قارنو أذاب تاسي وحكوكا إني أنا نقلوا من الغير الإسلامية أو قفك إن علامة عمل كيسين لا أقبله وحيابا علامة دوا وحكم ذا إن فتيرة دي أو نوشي حماسة دي دينتو إن أنا كتجيني غير دي هناسه لأجل الله ولديني إلى الدين تسوي هناسي وححني منكر كانوا ديني سادرات دي أيامها وحسكبتها dadku iyaga oo kala badbadanay oo le waa baraan inay u qaataan xumaantii iyo xaaraantuna inay xalaal tahay dad isqaawiya qaar qamaar ciyaara qaal isla gooni noqdo rag iyo dumara waxyaabahaas waa xaraam xaraamtuna waqtiga may xalaaloobin waxana lagu farxaa fi xuduud alxalaal la fi xuduud alxaraam xaraam lagu ma farxay xalaal ba lagu farxaa oo ilaahay loo mahadnaqa subhanahu wa ta'ala marka way iska dhacdaa hablaheeniyo wada qaangaara madaxa loo soo qaawinaya laabta loo qaawinaya dumarkii baa soo wada faydanaya qoladii xijaabnayde masjidka soo galay markii hore wanaagsanaa baa soo wada faydanaya marka qadiyadaasi waa arin u baahan inaynu ka feejignaano waxa lagu farxa xalaash ya asturnaanta ya adaabta ya akhlaaqda wanaagsan marka taana waa in hooyooyinka iyo hablaheena looga digaa نبينا عليه الصلاة والسلام ديوث بكتل ماضي ديوث قفك أهل كيسا عورضا أي قاونانتا أي عيبها رالك للنوضة إلهي نحر ولا تقربوا الزنا سنده ودوانين سنده ودوانشي هذا وحكم ذا وحيابها أي نشيغي إني قبر إسلقون النقضة قاونانتي قروح ذي لسواب بندقيي أرمها صور دموع ودوانشي سنده waxaynu xusuusanaynaa inaynu sii kordhino sadaqadii ayaynu ku dadaalay sadaqadii aynu bixin jirnay inaan sii kordhino ramadaan lama socon sadaqadu
إلهي رمضان أي نوع عبادة سنة إن الصدقة وإنه شوقة عيد وفرحة على صيبة دنيا بل صدقة لو واجبية زكاة الفطر لا يناظر بشهر رمضان يعيده وحلقوا تلقى لمساكين إن إلا فرحان برشة كلام وأنا كقدين مالك ضدك حياة سيد رادد النبي عليه الصلاة والسلام واجب كرنجي إلهي بقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من تزكى علماء التفسير قيب الزكاة فطر يكفسر قد أفلح من تزكى وحلي باني قفك الزكاة فطر يبحي وذكر اسم ربي تكبيرتنا آخري فصلى صلاة عيدنا تكلم marka sakadaasina waa waajibka labaad ee soomka inoo soo raaca ma ilaawi allagu sii talagalo waqtiga ugu fadli badan la bixinayaana waa subaxa ciida inta salaada ciida la tagin amalkaas inoogu muhiimsan waa waajibkuna sunna uu ka horeeya marka intaanad ku mashquulin dharka ciida iyo maydhashada iyo salaada sunnaha horta waajibka meel ku tiiri dadkii ka gudooman lahaa ama wakiiladoodiina diyaari haddaad dabadda dad jooga wakiil ka tahay ama ka bixinaysana ha kala habsaami oo hawsha ha dayicin laakiin waqtigeeda munaasibka diyaar soo bixi waxaana muhiim ah ahkaamteeda in la barto waa inaga marar badan ka hadlayna ahkaamta zakaat fidriga marar badan bay idaacadaha iyo tifiyada ka baxaysaa in loo dhageysto wixii su'aalana culimada laga weydiiyo taana waa dhiirigelinayna ehelkeedana la siiyo sax ma aha in la isku celceliyo hebel baa loo dhiibaya kana ka ku xigu dhiibaya kana ka ku xigu dhiibaya waxa laga yaabaa dhowr qof oo iskaba maal qabeen oo iska laadeen inay isku wareejiyaan oo saddex qof sakadooduna iskaga bixiyaan waxa la doonayaa maalku inuu baaho kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniyaa minkum maalku waa inuu baaho guriyo badan galaa sida la doonayaa waa sidaa waxaan ku dadaali doonaa insha Allah inaynu aad uga warhayno dadka duruufaysan ama dhibku haysto qola caafimaadkoodu dhiman yahay ama dadka naafada kuwa curyaamiinta kuwa cusbitaalada jiifa dadka maskaxda ka xanuunsanaya dadkaana in laga warhayo oo halkooda loogu geeyo wax dad baa jira iyaguna gobonimo daraadeed baahan oo aan dawarsanaynin siduu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam dadkii ma su'aalayaan oo ma soo baxayaan kuwaas haday garaacashada inaga daayeen waa inaynu u garanaa halkooda laga warhayaa waxyaabaha si habboon bay ka mid tahay hilibka in la bixiyo sidoo udhiyadaba loo bixinaya tan haddii zakaat fidrigu waajib yahay haddana xoolihii way qaaliyoobeen fuqara iyo masaakiin badan baan maraq arag iyagana dadka maalqabeenka ilaahay uu waxsiiyey xoolo badan intay ciidda ka hor iibsadaan intay kari karayaan fuqarada iyo masaakiinta waa inay u qaybiyaan ay maraqa gaarsiiyaan si ay u helaan tamartii ay u baahnaayeen borotiinka waxaynu weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul mar walaynu camal samaynaba sidii saalixiinteennu ahaayeen camalkaa ma tala saaranayno isku qancin mayno inaynu kaa ku guulaysanaynu ku liibaanay laakiin ilaahayna waa rajaynaynaa waana ka cabsanaynaa camalkeena aynu samaynayna ilaahay waxaynu mar labaad baryaynaa mar hadduu ina waafajiyo inuu inaga aqbalo inama yataqabbalu Allahu min al-muttaqiin ilaahayna wuxuu dadoo dhan wax kama aqbalee dadka taqwada leh baa ka aqbalaa intaas waa dardaaranka aynu isu sheegayno camalka iyo cibaadadaasi wuxuu ku dhamaanayaa markay naftu inaga baxdo wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqiin ilaahaga caabud ayaa nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam ila yaqiintu intay ku imanayso geerida وقد فعل صلى الله عليه وسلم طبقا لهذه الآية نبينا أرنتا وهو كان سمو سمي يدا سكرات وهيابو صلاة وكعي أو لها بيها هلا يقشبه أو كل دين النبي عليه الصلاة والسلام ولها صلاة إيكعية لأنه جمع سوتك يسكدي إذن عبادة داسي إن إيدان هوس وقرعين لكن إنه قالنا الصحيح هل كان لك الصحيح قادنا يا إن إيتا عبادة متنوعة كلا دوان انت وحصير راعين لها قوان با صوب حي لا يسلقاته او ان ولا لهن reer Gaza Falastiin in loo gurmado wixii aynu ku tari karno oo awood laba geyn karo meel loo maraba lama hayee oo gaala xidhiidhato ciidan uma geyn karnee
laakiin calaf wixii aynu u helayna iyo xoolo in loo ururiyo sidii aynu ramadaan oo dhan iyo intii dagaalkaasi socday oo dhan ugu ducaynaynay maantana haddii fursad la inoo siiyey xukuumado badan baaba dadkoodii u diiday innaga haddii fursad la inoo siiyey in wax loo ururiyo oo jiha rasmi ama jiha saxan oo gaadhsiin kasta loogu dhiibo markaasi sunno maaha waa waajib dadka muslimiinta ah waajib bay isugu leeyihiin kajaarkeena ay nala magaalada ee dhibaataysan ama cadow hayo ama cudur hayo ama cabsi hayso sida waajib inoogu tahay inaynu ugu gurmano kaa inaga durugsana walaalkeenana waa la mid waxa aad u nasiib darro ah in gaaladii oo dhammi ay isugu timi barigooda iyo galbeedkooda ay u heshiiyeen siday u dili lahaayeen ee u layn lahaayeen markii ugu horreeyeyna ay tahay caalamul islaami inay u qaybsameen qaar yuhuudda la safta iyo qaar ka aamusa oo shibtooda gala waxaanina wax imika dhacay maaha waa wax muddo la soo karkarinayay oo hadda uu bislaaday 100 sano dhammaaday oo laga joogaa khilaafadii dawladda islaamka markii Turkiga laga dumiyay 3 arrimood baa muslimka iska raacay oo 100 sanadood uun ay waayeen midka u horeeya waxa weeye muslimku waxay lahaan jireen dawlad ay ku midaysan daciif baha iska ahaato gobolabaha ka maqnaadeen laakiin khilaafa u jiri jirtay dawlad dhexe oo markasiya ayaa jiri jirtay oo dadka si uun loogu soo hiran jiray waxa labaadoo dadka muslimiinta u ognaa shariicada haba laga baydhbaydo daciif baha iska ahaadaan dadka oogaya ama xukaamtu laakiin calankaasi waa taagnaa shariicada in lagu dhaqmo oo dawladda jirta diinta islaamka dadka ay ku xukunto al-majallatu al-adliya baa la oran jiray majalladii ama kitaabkii qodobaysnaa ee dawladda Uthmaaniya ay ku xukumi jireen midka saddexaad ee dadka muslimiinta 100 sano u dambeeyay ka lumay waxa weeye jihaadka in albaabkii jihaadka ay gaala iyo ehelkeedu soo xireen saddexda arrimood oo israacay waxay keentay waxaynu arkayna maanta wadad walaalaheena adduunku wuxuu u heshiiyay inuu xasuuqo meelahaas aynu nacnacda gaalada ka maqli jirnay xasuuqu waa mamnuuc ibaadada in ummad loo heshiiyo la baabiyo waa mamnuuc waaba loo heshiiyeyba waxaynu arkaynaa adduunkii oo ku heshiiyey ummad meel degan oo 3 milyan ku dhow in la baabiyo oo gaajo ay u baqtiyayaan oo markay gaajoodeen qaybina caleenta cunaya waxaan arkay ilmo yaro Falastiini oo caleenta cunaya iyo carab aad u hilib badan hor yaalo oo sawirka la barbar dhigay carabtii khaliijka oo xiriyo waaweyn oo hilib ah ayaa sidaa la isu barbar dhigay kana caleenta cunaya kuwana waxa si hafaya qayb kalena aydiya bisadaha ay dubtaan markay waxay cunaan waayeen sawirada waxa inooga soo baxaya ayda iyo bisadaha sida iyagu cunayaan aydi iyo bisadihiina caruurta Falastiin bay laalaadinayaan ay cunayaan halkaas ayaa bani aadamnimadii iyo insaaniyadii iyo xorriyadii wixii oo dhamay ay ku soo afjarmeen oo ay ku hareen marka qof waliba waxa uu heli karaya inuu gaarsiiyo waajib saaran weeye maalinta qiyaamahana ilaahay uu weydiin doono ilaahayna wuxuu wa in istansarukum fi diin fa alaykum an-nasr hadday islaamnimada daraadeedii gurmadeedii ku weydiistaan waajib bay idinku tahay u gurmada baa ilaahay fa alaykum ay yajibu alaykum an-nasr waxa idinku waajiba ina u gurmataan oo u gargaartaan وأنا هذا فالحم بقيه قال هذا لقى بقيه يهود هي مريكان إنه جارسية لم إن حكومة هذه الكرواية أو شعوبتي هذه الكرواية أو علماء هذه الكرواية وأنا سيدرها أدوي قبل نمنا معها رجل نمنا معها إسلام نمنا معها مركا قف ولا بوحي وهلي كراي إنه كويس السينينا وإن قاعد قف ولا بوحي وكراي ولا الكي شار كيسيه الكيسي سينيا لكن قيبتك كواس لهاين وين سويس dagaalada inuu inagu dhexdeena maraya waa dagaalo la oran karo xaalad abuur weey waa aftaag iyo kala riixasho iyo inaga oo runtii shisheeye aanu inoo imanin fitna dhexdeena ka oogan tahay weey laakiin kaas waa jihaadkii dhabtaha waa cadawgii dhabtaha marka kaalintii aynu ku yeelan lahayn jihaad ayaa laga qayb qaadanaya intaasaynu iyadana si xusi lahayn in la xoojiyo qaraarka go'aanka isaga la isla qaatay qof walibana wixii uu ku dari karo uu ku daro marka ducadii iyo deeqdii hadaynu isku darno
تيجركم بيننا هدي هذا هجار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة